miyigu asal ahaan waxa uu lid ku yahay magaalada waana halka nolosha bulshada Soomaalidu ka bilaabantay haddaba waa markii ugu horeysay ee mugga iyo macnaha u dhaxeeya hayaanka nolosha ee miyi iyo magaalo laga qoro buug saameyn weyn ku yeeshay bulshada buugan oo qoray hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani mudane Xiisi Cali Xaaji Xasan ayaa bandhiga buugan intii uu socday waxaa hadallo isugu jira taariikh dhacdooyin duruxul iyo kaftan ka soo kala jeediyay mas'uuliyiin isugu jira madax dhaqameed aqoon-yahan iyo siyaasiyiin ay isku aragti yihiin hogaamiyaha iyo kuwa kale oo ay ku kala duwan yihiin siyaasadda waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tani waxaan laba dhoobi oo geel Axmed Siiyaan mas'uul ka yahay midba hareer kaga jira oo laba haloo kala sita wax gaar ah oo loo dhaxay halahana qaar baan isku haysan geelana maan kala xadiisan jirin wal wada shaqayn jirin hase yeeshee saaxiibaan hadeerna saaxiibaan laakiin waxaana kala eegayay aragtiyada siyaasadeed ee soo kala dhex galay Axmed Siiyaan iyo inaanu dhisno isku ma khilaafin inaanu taageerayaal nahay oo abaal badan Axmed Siiyaan dabcan wala wajiriisa maahay oo deena codtayada rag badan dibadda joogo laakiin waxaanu isku ku kala aragti duwanaanay aniga isaga iyo rag badan oo tacalimo ka mid yahay in taagnaa waxaan ku kala aragti duwanaanay Axmed Siiyaan dibadda aragalayo Axmed Siiyaan dibadda reerka iyo qaranka xageyn u hayaaminayna ma waxaynu u hayaaminaynaa bari isagoo beer isagoo iyo wixii markii uu madaxtooyada joogay wasiirka madaxtooyada ayaa Allah u naxariistay in jaahi loo dhintay oo inaga hooseeya maanta ayaa intii ugu tegay madaxtooyada isagii ninka ayay tisaawo eegeen ayaan والله صحاب وين فكاسو يا ويو تسلو شو تسوى معاها فكاسو يا عرفت شيء صعب سلو كويت فكاسو بيجي ما صحيح ده يكون يوم مش شيء سوي هم فكاسو سوي دقيقة لبعضنا وبس الدقيقة بعضنا يا هو نحليون شباب وسجنا حاجة تحول أيضا حبضا يسجن كبر رأس أو يشكك يبلاتوي يقولي مكان يبلاتوي ده كي تكشف شهادة حوية السياسة أصلا تويس كبر رأس صار تحرس أنت عارفة السياسة كل شيء هذه اللي فيها هي اللي تقالي ده أنت وراء حيوان يقول ما حس وحبك كسر تعبان ما يقول قلت ما يجي إيه بصراحة حاجة تعرفه ويقول بالله ما في طبيعة ولا يمكن كاتب بيه ده محاول عشان بيش شوي فكان محاول عشان تاجس بالله إيه تاسع كلها حس كلا سياسة ده مفروض علينا طبعا بيقولوا العسكر متوقع كوجهني اليوم وحاسة إذا علاه كنت يبغى يبغى تور يبغى لما راح تكلموا حسبي سوا عدك سمرني لكن أفهم أنه مكلك يعني وعسى لكن دليل لو شيء هذا اللي بنصونه الله شيء بندرين على مسقط الصداع إلا هو مدلل مقاتك والفرع وحاب مشي سويت ما حس كارت شيء بدل ما شرط وحاسس صوب يسوي زي كذا ترى يسوي حط يوم كاري كذا وعليه ولا يفهموني لكن واحد شيء يوم كاري يسوي شيء وإذا حلي كذا قاعد مساعد في هذا أنا أقول حلي قاعد هو جوا دور كواهي مرجع الضباب كامر كنت صار وعي كلامكم ما يساوي فري رجي دعي كمل محمد يوسف الليمان وعند تلو وعند سنة جوهنا أيام مش يفضلين ده من الغيارة من اللي نقول الشريعة خد البشر عن فريق هاي يعني ندور شو ده بيلنجي بس عليها من اللي نقول الشريعة ترى ما صار حاجة ده من نوع لها ومن اللي نقول الصدق ما داعي فقاسنا لها هذا من سبب لا داعي سيقول لي لا قاعد عليه مش كسر له ده ما قاعد يقول لك تقول معك رأسه
حسبنا ودني يا بريء لو تعال أقول لي أنا وحسبنا حسبنا مو مقلين قولني منو مقلين منا ولا أنا ويجي أنا وحسبنا مركان كل مياه أنا حسبنا مسؤول community kuwa kuwii wadooyinka ka shaqayn jiray waayo haddaan meel haddaan xigtanimo eegayno inkastoo markii dambe la xumeeyey waxaa dhinacayga joogay abtigay Jamaal Cali Xuseen iyo Faysalo aan isbaardaan marka kuwaas aan haddaan qolo ku raacayo iyaga raacina inkastoo markii dambe la xumeeyey waxaa dhinacayga joogay abtigay Jamaal Cali Xuseen iyo Faysalo aan isbaardaan marka kuwaas aan haddaan qolo ku raacayo iyaga raacina maalintii wadani la galay ayaan xirsi meel alla meel aan wadani ka geliyo garan waay gudoomiye waa la haystaa gudoomiye ku meel gaarka haya Carbuunaag Cabdiqaadir Jirdaa qaatay waxaan waa ninkii xisbiga xageed ka gelisa laba walba waa isaaro meel alla meel aan oo aan isla halkaas aan qalataan way anigoo yaab oo le waxkeed ka gelin ma xogayaha duulistiya hawada tiraamso xogayaha kuwaan kida anigoo isle ayuubu niila soo hadla markaasuu yidhi xisbigii xirsi waxaa loo doortay jaga cusub waan maxay ahayd baan ku yidhi wuxuu yidhi hogaamiyaha markaasay qalbigay gashay inuu hogaamiyaha mustaqbalkan takale golaha baarlamaanka ku jiray حساب سوق الهور جدان وهاي رجل يقول درا مركزيك بالحتوية لها أيام وهاي أنت بدلنا هذانا قوم كل من ونحس جاء كل من أيوم ما هذانا ده أنو وين حاجة يكسره وحكومة سنة مالك اللي يموتوا واحد ضدنا ما نسيك سناي واحد كبر سناي مركز نسووني بي حزبنا وحلاقي يا بعض بدرين شكل كليان ولا إلى ورد ميش ولا بعض إن ما ولا قاعدة حكي واحد هاي هذه أدبان سولا شانقاب هذه أدبان سولا شانقابني وأنا دلقان بدن مركز نشرنا كجلو أمان حزبنا هاي أمان عود كلا شرينه وعلى جيا بانو من حناقه نيك كلير حناقين هذا الأمور كلها سكوت ضيا إنه خط وسط دقو وحرس كانوا قوة ماريو waxaa xusid mudan madashani inaanay haba yaraatee ka soo qayb gelin mas'uuliyiin ka tirsan xukuumadda uu hogaamiye madaxweyne Muuse Biixi Cabdi laga yaabo dadka qaarkood inuu weydiiyo wararka waliba muhiim weydiiyay waa siyaasadda maanta ma ku dartayo maya waxaan baarkin gareeyay maalintii doorashadu dhacday doorashadii oo dhacday 2017 ee nalaga helay aan nimeeyay ka hadlay maalinta ayaan baarkin gareeyay dawladda iyo wixii laga oran doono daawacada way ku jirtaa insha Allah marka taa qofkii ka baadi doona kuma jirto وعبد السلام أحمد عود عبد الشرماني ورقة تلفزيون كأريال هرجيسة